khiyaarteenna kusoo dhowaada tabinteenna iyo weliba caawa falanqaynta kulamada xiisaha badnaa ee koobka UEFA Champions League habeenkan cajiibka oo aan ku falanqayn doono inta badan kulamadii la ciyaaray islamarkaana waxaan dul istaagi doonaa kulamadii waaweynaa kooxda kubadda cagta ee PSG oo afka ciidda loo daray islamarkaana garoonka xadiiqatul umaraa lagu jiijiiday ha ka tegin Barcelona waxa ay soo wado iyo webiga yaaweyn macaawa mar kale wixii golol ahaa bay daadiyeen dunida oo dhan ayaa ka yaaban sida kelmaddu macnaa u leedahay Blaugrana waxay noqdeen koox aan la loodin karin sida kelmaddu markaa macna u leedahay weliba cabsi ayuu ka dhigay macalin Hansi Flick markaasi sheekooyinkii ugu waaweynaa Arsenal iyo weliba kulankii cajiibka ah maxaad kala socotaa sheekooyinkii ugu xiisaha badnaa ee Champions League caawa laga ciyaaray ayaan eegi doonaa isla markaana ku dul istaagi doonaa dabcan kulamo badan ayaa la ciyaaray uu ka mid yahay Inter Milano nadiga marka Arsenal PSG waliba markaasi Atletico iyo kulamo dhowr marka haddii aad nagu cusubtaa daawaday fadlan subscribe noo saar sii share garee meel kasta oo aad joogtaan soo dhawaada dabcan barnaamijku qaybo kala duwan ayuu ka koobnaan doonaa markaasi haddii aanu ku horeyno waxaa jiray kulamo waqti horeba markaasi la ciyaaray isla markaana soo galay 8:45 daqiiqo yani 3 saac oo wax dhiman oo kale waqtiga markaasi ayay ahayd waxaa ka mid ahaa naadiga kubadda cagta ee Club Braga waa mid ka mid ah naadiyada aad garanaysaan isla markaana cajiibka Club Braga waa naadi macquula marka la eego wacdaraysan waqtidii ugu dambeeyay unbelievable ahayd horyaalka marka Belgium-kana ka ciyaarta Club Braga caawa taariikh bay dhigtay waxay samaysay ayaana sabab u ahaa caawa inaan ka hadalno arrinkan aadna u hadalnayno isla markaana aan xusi doono waqtiyada soo aadan sababtoo ah Club Braga guuldarro ayay dhabarka u saariyeen kooxda kubadda cagta Aston Villa taasoo keentay inay bedesho marka la eego jadwalkii kala horeynta iyo weliba markaasi in kooxda kaliya ay hogaaminaysa aanu xaqiiqsano Club Braga ay gool waxba kaga adkaatay Aston Villa taasoo ka yeeshay Liverpool inay noqoto tan kaliya ee hogaaminaysa jadwalka kala horeynta markaad fiirisid afartii kulan iyagu ciyaareen waa kooxda kaliya ee ku guuleysatay 12 dhibcood iyagu inay qaataan sidaas daraadeed kulankan ayaa bedelay natiijada isla markaana iyaga iyo weliba labana Ingiriis bay ahaayeen Aston Villa iyo Liverpool laakiin guuldarrada Aston Villa soo gaartay waxay ka yeeshay Liverpool kaligeed inay hogaamiso sababtoo iyagu waa 0 draw waa 0 loss markaasi gool kaliya baa laga dhaliyay 10 gool bay dhaliyeen 9 gool difference bay haystaan 12 gool bay markaasi iyagu sidaas ku haynayaan halkan marka waxaad ka garan kartaa faa'iido iyo weliba markaasi bandhigoodu unbelievable ayaa sidaas ka yeelay inay ku naaloobaan markaasi halkan geesta kale nadiga kubadda cagta markaasi Club Braga markaan ka soo tagno waxa jiray kulamo kale tusaale Shakhtar oo kale 2 gool iyo gool ay kooxda kubadda cagta Young Boys kaga adkaatay Feyenoord oo kale gool iyo marka 3 baa lagu jiido Salzburg bay kala marka kulmeen ciyaar yaab lahayd markaasi oo su'aalo badan laga Presti oo kale 2 gool iyo gool bay ku adkaatay Atlanta 2 baa lagu jiiday Stuttgart bay jiiday markaasi kulankii cajiibka ahaa ee aan wada sugayna wuxuu ahaa kii dhexmaray PSG iyo waliba Atletico yani macalin garanaya kubadda halkan macalin markaasi aad isha loogu hayay macalin marka lagu magacaabo macalinka cajiibka ee la yiraahdo unbelievable macalinkan anigu kama shakinayo Enrique wili waxaan qabaa Enrique isagu inuu yahay mid ka mid macallimiinta ugu wanaagsan ayaa dhulka lagu jiiday PSG oo gurigeeda ku ciyaaraysa ayaa wajahday kooxda kubadda cagta ee Atletico waxay wajahayaan macalin kubad qurux badan soo bandhigaya kubadda qaadanaya ciyaaraya iyo waliba nin bas dhiga yaqaan isla markaana garanayo sida loo guuleysto macnaha style wad garanaysaan Mourinho Diego Simeone 4-4-2 buu ku soo galay si shashada ka arkaysa halkan ninkan uu isagu ku soo galay 4-3-3 toos markaasi dabcan kubadii way qaateen kooxda kubadda cagta ay markaa PSG oo aad ka garan karaysid PSG ciyaarta waxay maamulaysaa 71% ama 12% XG ama expected goalska fursadaha Enrique kooxdiisa abuureen waa 1.92 waa wax laba ku dhow marka expected goalskoodu sidoo kale marka fiirisid kuwan hal ma dhama kuwan wallahi ku dhigayso ma 1.92 kuwan waa 0.86 imagine waa 0.66 hatta 80 ma gaarsiisana saddex jaanis oo weyn bisaas ta heleen iyaguna markaas waxay heleen laba jaanis 22 shoot bay turtay PSG afar shoot baa lagu tuuray taasoo ka dhigan iyagu inay guuleysteen kooxda markaas sameeyay adiga wax ka dhe adiga ma garan kartid
سلو جولست والله أتلتيكا جولستي وحاسد أن كل شيء كوبادا سلهيسني إسكايسو كوبادا ونتيجة مركل جولي واقع وصوب دنيا بيجي حالكو كسي حمانيا قاب كان مادام يو عيارين نتيجة إيجو كلن كان كهلن صوبتها بندقة وحاو مهم وها إن أي جوليستان إن أي دجالمان تاني وحين سين سامركاسي إن رباحة يكون عادي مركا كلكي كلام وده سجن وها كده حمر كعبة كبدا عكت إنتر ميلانو يولي بأرسنال لبا كوحود أو إيش اللي جوا ده هي معلنكي كعبة كبدا عكت أرسنال أرتيتا iyo macallin kale oo la garanayo isla markaan aad markaa bulshadooda ay u taqaano eesh markaa Simeone Inzaghi Arsenal jahawareerku ku sii soconaya Arsenal ma garan karta halkay ku socoto markaa kulan kale oo guul darraba darkaysa ma la fahmi kara Arsenal markaa deegtid nin gool kulaadyada biyo u yihiin ayaa markaa loo dhiibay markaa su'aalaha ka imanaya macallin Arteta halkee buu ku socdaa markaa waa mushkilad weyn oo kooxdan markaa haysata ayna markaasi la dhibaatoonayso nadiga kubadda cagta Inter Milan caawa garoonka Giuseppe Meazza ee magaalada Milano ay ku martisooreen markaasi qaybtii markaa bilowga dhamaadka marka la eego dhamaadkii qaybtii hore ayaa penalty Arsenal markaasi la siiyay kadib isku dhacay kubaddii gacanta markaasi Moreno waxaad aragtay markaasi in la dhigay Shananoglu ayaa tuuray waana dhaliyay ninkan 19 kun ugu dambeeyay penalty loo dhiibo oo wada dhalinaya markaa sidaas daraaddeed waxaad garan kartaa canugan doorka uu ku leeyahay kooxdu iyo sida markaasi unbelievable ugu waqtidii ugu dambeeyay Arsenal markaad fiirisid bandhig ahaan aad bay u liiteen kubaddoodu ma qurux badnayn marka la yacni fursadihii la reebay sameyn inkastoo qaybtii dambe Arsenal ay isku day samaysay kooxda kubadda cagta Interna dib ay u noqotay markaa laakiin almost natiijada way haystaan markaasi marba haddii natiijada kooxda haysato dhib badan kuma qabayaan markaa waxaad aragtay marka Inter 10 dhibcood iyagu kaalinta shanaad ku imanayaan 3 dhibcood ayna qaadanayaan waana muhiim halka kooxda kubadda cagta Arsenal 7 dhibcood ay haystaan kaalinta 12aad iyagu way joogaan markaasi Arsenal la horyaalkii ma wanaagsana iska daa Champions League ma garanayo marka Arsenalka u socdaan markaasi laakiin xaalad jahawareera ayay ku jiraan sida kelmadu macna u leedahay ma dhigi karo 100% ay u dhow yihiin sababtoo ah jahawareerkan sida markay ku bilowdaan kooxdu meel aan wanaagsanayn ayay ku dambeyn kartaa markaasi haddii aan u gudubno anagoo rikoorraday waxyaabo badan ka hadli doona arrinta cajiibka ee markaasi dhacday aadka isha loogu wadahayay nadiga kubadda cagta ee markaa Bayern Munich ishiyadu waa ciyaartay Munich Benfica way la ciyaarayeen sababtoo ah markaasi gooli waxba ciyaarta maadaama hadda gabagabay tahay waqtigan aan duubayno ciyaarteedu dib baa markaa u dhacday taageerayaasha oo kasoo daahay garoonka ayaa keentay markaas dib in loo dhigo sababtaas ayaana markaas ciyaarta dib loogu dhigo oo waqtigii loogu talagalay garoonka loo soo gali waayo waxaad aragtay wiilka cajiibka ee Jamal Musiala oo isagu dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay Champions League xilciyaareedkan 8 gool iyo 4 assist dhammaan tartamada oo idil ayuu isagu xilciyaareedkan lahaa cajiibuna isagu ahaa markaasi markaad fiirisid unbelievable hambaliyo markaasi markan waxaan eegi doonaa isla markaan aan dul istaagi doonaa kulankii xiisaha iyo kalgacalka lahaa kulankii cushaaqda dunida markaa dunida kubadda cagta u hamuun qabeen kulankii cid kastoo kubadda wata barihan waa ma maqli jirtay halkaaban city bayna siina taalaay halka igeeya aanu daawanay in waqti la dhihi jiray ma xasuusta waqti la dhihi jiray halka bay kubadi taala ee hal igeeya aniga ficlan taaba jirta markaasi haddii sidaa maqli jirtay maanta waxay taagan tahay in kooxihii ay yiraahdaan city bay markaasi kooxda kubadda cagta ee markaa Barcelona waa city noqotay bal halkaa nala geeyay marka sababtoo waxa ay sameynayaan wax khiyaaliya waa wax caqliga qofka xitaa ka baxsan markaasi kulan kasta waa badinaya kulan kasta 4 iyo 5 baan dhalinaya kulan kasta kooxan wax laga qaban karin kooxihii wadnaha baan goynaya waa wax ay adagtahay la sameeyo runtii Hansi Flick wuxuu ka dhigay kooxda kubadda cagta Barcelona koox laga baqo xitaa koox caadi ma dhihi karaan koox cid kasta oo naadiga la ciyaarayso way yartaa dhigi kartaa laakiin horabay marka ugu guul daraday waad aragteen kulan imasajer waad arkayseen kooxdan inay dhibaatoonayso imasajer waad aragteen in kooxdan ay awoodi waayeen in farqi inay sameeyaan طبعا فهمي كري لانهاي برشلونة مدير كور متنبا هاي برشلونة اللي شيء مدير كور برشلونة سيدا هاي إيه ما أنت إسكو إيه مركا ديكتي كوح يدو مركاسي كلن إيه لبا إيه سدح عنو جوجين مستواها سيدا كلن كي بلوغا حليرات كاها إيه عياريان ما أنت سيكا وناكسي إيه عياريان كلن بلوغا ديغدا سيدا عياريان ساقاشن كمركي تاقنتها سيكا قروح بدنو كفي عنا إيه عياريان كلن أدن قرن كرين برشلونة دان waxay taruntii
runtii macallin Hansi Flick wuxuu ka dhigayaa kooxdan koox aan la loodin karin runtii dabcan markaad eegtid xidigaha faraha badan ee goolasha dhalinaya kuwa faraha badan ee assistiga sameynaya sida quruxda badan ee kooxihii ay uga dhigayaan in laga baqo isla markaana ay la geli karin garoon waxay ku tusinaysaa markaasi shaqo qurux badan indaha gadaashiisa uu isagu ka wado macallin Hansi Flick imise rikoor bixleereedkan burburin doontaa Barcelona markaasi imise baan arki doonaa wacdarada iyagu ay sameynayaan runtii waxay sameynayso Barcelona waxaan dhihi karaa wax khiyaali ah runtii waayo kooxdan waa koox haddii aad mucaarad ku tahay wadnaha kula xanuunay daqiiqada ugu horeysay ilaa 90ka intaad garoon ku fadhidid markaasi waba haddii ku gaarsiiyaan 90ka markaasi waayo 10 daqiiqo markay socod 15 daqiiqo ciyaartu waa dhamaatay baad arkaysaa gool markay dhaliyaan kuma istaagayaan waa ka dhalinaya waa ku saddexina hatta haddaad markaa ka barbaraysid uma istaagayaan markii hore waan arki jirnay haddii Barcelona gool laga dhaliyo inay soo noqdaan iska daay kaabay ku bixi jireen laakiin tan hadda waxaad arkaysaa ay adag tahay waqti xaadirkan in lala bala dagaalamaysa qurux badan weliba aan lagu aadin runtii hambali aan leenahay kooxda kubadda cagta Barcelona iyo shaqada quruxda badan caawa haddaan eegno kooxda kubadda cagta Blaugrana waxay ku soo galeen nidaamkoodii caadiga ahaa macallin Hansi Flick oo isagu wata xidigiisii weliba waxaad arkayseen 4-3-3 toosa oo isagu macallinkan uu jahayo kooxda markaasi Crevena la yiraahdo dabcan kooxdan waxay ku soo galeen 4-5-1 kooxdan waa koox markaa horyaalkeeda unbeaten ka ahayd xilaareedkan waa markii ugu horeysay muddo dheer intaan falanqeynayo ciyaaraha markaasi inta janalka furnayba markaasi in Barcelona koox ay tiraahdo waxaan la ciyaaraynaa kooxda ugu fiican dunida sababtoo tan iyo janalka furitaankiisii ma sahlanayn 2018 ilaa maantadan naadiga kubadda cagta Barcelona waxay iska aad mid iska dhibaatoonaysa xitaa markay xaalad wanaagsan ku jirtay ma gaarsiisnayn maanta Barcelona kooxii waxay ku leeyihiin waa kooxda ugu fiican dunida kubadda cagta aniga ma ciyaarta ka hor macallinkooda iyo maamulkooda dhageyso waxay ku leeyihiin anagu waxaan la ciyaaraynaa kooxda ugu fiican dunida kubadda cagta sidaas daraadeed waxaad garan kartaa shaqada quruxda badan ee kooxdan qabanayso Barcelona shaqada quruxda badan ee macallin Hansi Flick isagu uu sameynayo taasoo mid khiyaali ah oo ay adag tahay in kale in la sameeyo markaa nidaamkan ayuu ku soo galay markaad fiirisid 4-2-3-1 isaguna markaasi 4-5-1 wajahaya markaa kooxda kubadda cagta Barcelona daqiiqadii ugu horeeyay kubaddii bay qaateen isla markaana way cadaadiyeen waxay isku dayeen inay markaa galaan laakiin kooxda kubadda cagta ee markaasi red waxay isku dayday markaa inay counter attack kula ciyaarto goosha kooxda kale ay gaarto laakiin waxaad aragteen goolka koowaad ayaa yimid waqti weliba la islahaa ciyaartu ma dhowa waxay noqon karaysaa mid waqti kale qaadan karta laakiin Barcelona waxay noqotay koox aan u joojin gool iyo 2 iyo 13 daqiiqo markay ahayd kulankii hore 12 daqiiqo fureen kulankan 13 daqiiqo bay furayaan yani 10 iyo dhowr markay gaarto iyagu waxa waa account-kooda goolasho furmay taasoo ku tusinaysa marka markasta oo daqiiqada ugu horeeya kooxda gool ay dhaliso markasta in natiijadu ku fiican tahay markasta oo aad horumar sameyn kartid markasta oo marka deganaansho taageerayaashaada aad ku beeri kartid gool bay dhaliyeen 13 daqiiqo 20 daqiiqo waa laga barbareeyay marka dabcan kubaddan waxaa jirtay markaa Barcelona in 100 offside caawa markaasi gool baa laga dhaliyay goolka koowaad ka hor iyagu ay dhaliyeen inta laga dhaliyay gool baa laga dhaliyay goolkaas offside baa loo diiday goolkaasi offside-ka loo diiday waxay ku tusinaysaa offside-kii boqolaad ay markaa xilaareedkan galeen oo kooxii markaa la ciyaarayay Barcelona markaa ka horjeeday 100 offside bay galeen marka taasoo Barcelona ay keentay qorshahan inuu yahay mid looga baxay markaa kooxihii kale marka inta waxay ka dambeeyay gool markay ahayd Lewandowski baa dhaliyay waliba fursado badan buu isagu lumiyay isaga ayaana soo noqday Rafinha ayaana goolka afraad dhaliyay kadibna Fermin Lopez ayaa isagu shaneeyay markaasi si natiijada ay u noqoto marka hat-trick assist uu isagu sameeyay wiilka cajiibka ah Conte kaas oo isagu marka Barcelona ka caawiyay 5 gool inay ku adkaato marka laacib aan awoodin 2 ilaa 3 xidig inuu dhaafo laacib aan awoodin isagu markaasi xitaa gambis inuu sameeyo laacib aan awoodin farqi inuu sameeyo ilaa iyo laacib hat-trick assist sameynaya waxaad ka helaysaa kooxda kubadda cagta Barcelona runtii macallin Hansi Flick waxa uu ka dhigay canugan mid cajiib ah ciyaarta ka hor Pedri baa hadlay wuxuu yiri Barcelona waqtigii uu joogay Xavi daqiiqad markaad soo daahdid 1,000 euro baa lagu ganaaxay 1,000 euro daqiiqad kale marka aad sii daahdid waxaad arkaysay inuu laabmayo 2,000 noqonay laakiin waqti xaadirkan marka aad soo daadid waad noqonaysaa line-up haddaad geli lahayd ciyaarta line-upka ma gelaysid amaba kulankoo dhan baaba lagaa saarayaaba taasoo ku tusinaysa markaasi in dhan kale uu isagu ka eegay dhankii kale ee dhaqaalaha iyo waxyaabo kale laga fiirin lahaa
gudaha markaan eegno kooxda kubadda cagta Barcelona waxay ahayd koox wacdareynaysa isla markaana cajiiba caawa rikooro badan baa laga gaaray tartanka koobkii UEFA Champions League rikooradaasi waxay ahaayeen kuwa aad u qurux badnaa isla markaana aan sahlanayn markaad fiirisay rikooradii caawa la gaaray Jan Sommer oo kale waxaa la leeyahay clean sheet buu isagu qaatay markaa clean sheet buu isagu qaatay waxaad arkaysaa 8 clean sheet 11 kulan oo Champions League 39 markaa badbaadin buu sameeyay 8 clean sheet waa qaatay sidoo kale 4 gool baa laga dhaliyay markaasi runtii 73% ay clean sheet percentage ahaan u qaadanaya waana rikoor wanaagsan xidigaha markaa difaacyada 3 gool ka badan habeen caawin ka sameeyay tartanka Champions League waxay dhacday tan iyo 2016 Alba iyo Tottenham 2018 ku sameeyay Ashraf Hakimi iyo Atletico 18 ku sameeyay Joao Cancelo ayaa markaa 2020 Calabria ku sameeyay Cravenana waxa ku sameeyay Joel Conde hat-trick assist maadaama isagu sameeyay xidiga cajiibka aad arkaysaan wiilka la yiraahdo wiilka Rafinha fiiri ninkan waxa lagu leeyahay October sida ay bilaabatay eeg caaw waxa uu isagu sameeyay waa dhaliyay waana markaasi ku caawiyay markaa kooxdan Rafinha ninkaas arkaysaan Young Boys waa ka dhaliyay waana ku caawiyay Alves laba buu ka caawiyay Xavi uu ku caawiyay hat-trick buu Bayern ka dhaliyay Real Madrid waa ka dhaliyay waa ku caawiyay Espanyol waa ka dhaliyay caawana waa dhaliyay waa ku caawiyay markaasi taasoo ku tusinaysa markaasi shaqada cajiibka ee lama markaa macalinkan marka wax badan ula sameeyo runtii marka macalinka wuxuu awooday inuu soo saaro waxa ugu fiican uu leeyahay markaasi marka Sevilla waa la garaacay waanu sheegnay Liverpoolna waxay noqotay kooxdan tan kaliya hogaanka horyaalka iyagoo haysta horyaalka qaaradda Yurub koobkii UEFA Champions League aad u mahadsantihiin saaxiibayaal waan kaga mahad celinaynaa si shargareeda saaxiibada wadaaga salaam